خاصة أنت غير سيدة توسكا ومتحن جمعية غيرها ماما عاشا فاونديشن runtii waxaan joognaa maanta hooygii agoonta ugu tala gashay ilaahay khayr ha ugu diseeyo maama caasha hooygeedii ugu tala gashay agoonta runtii farxaddan hadda aan taaganahay waad ujeedeen waxaa ka dambeeya waa dhismihii runtii dhismihii goobihii markaa ay seexan lahaayeen haddii ahaan lahaayeen hablo iyo sidaad arkaysiina dhismaha wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 47 qol isugu jiro ay seexan lahaayeen iyo waxbarashadooda wuxuu leeyahay 24 musqulood si markaas baahi loo qabay dhanka musqulaha maadaama meesha loogu talagalay ilaa iyo 400 ilaa 500 oo agoon si uga helaan waxbarasho free ah runtii xarunta sida aan arkaysiina qaabkeedii hadda sidaan inoo maraysaa walaalaha muslimiinta hay-adda maama caasha foundation runtii wax badan oo soo dadaaleen dadaalkoodii inay sii laba jibaaraan maadaama meeshii ay tahay sidaan ay qabyo u tahay waxaan rajaynaynaa qabyadaas ay kaalintooda ay ka qaataan dhismihii oo inoo socda laakiin waxa ugu daran waxa waaye dhismaha hadda waan la wada taagay laakiin dhismihii yaraayaa noo dhiman haddii aan lahayd markii la wada liisheeyo hadday ahaan lahayd intii meesha waxaa kaleeto noo dhiman qurxintii walaalaha muslimiinta had iyo jeer garabsiiyada maama caasha foundation waxaan leeyahay in yara inoo dhiman intaas yar ilaahay khayr ha ugu jizeeyey maamada inaa garabkeeda aada istaagtaan الله حط واقعنا دي مركا واقعنا انتو كلايتين waxaa loogu talagalay caruurta agoonta inta arday inuu inta ku fariisto si markuu ku fariisto raashinka uu ku helo nidaamkaas ayaa weliba waa loo kala bixiyey qaybtii dumarka qaybtii wiilasha sidaana loo kala bixiyey meeshaa qabda ugu horeysaan soo galnay waa maqaayadii ay ku cunayn lahaayeen agoonta sidaana laga dhigay inta markaa hadda ay ka soo qabo waa wiilashii oo kale inta waa qaybihii wiilasha waxa kala noo qaarsan ذكرت حاجة ليه أنت إذا مواصلة حبيبتي وعلى أوقات الجلد أي تيان دمرك مركا واقع صار أنت لابد هول واي runtii waxay ugu tala gashay maamada si looga dhigo meelihii ilmaha markii ay xaflad jirto
xafladihii hooshii lagu qaban lahaa waa labadan meel inta u soo gudubnay inta waana labada dhinac inta waa darjiinkii waxaan ugu talagalnay in beero laga dhigo si ilmaha ay ugu doogsadaan indhahooda ay u qabtaan doog runtii waxay ka mid tahay qaybaha aan ugu talagalnay college-ka intaa ka soo baxnay waa fasaladii waaye irdahan aad arkaysiin waa fasaladii waxaan ugu talagalnay in ay waxbarashadooda ay noqoto halkan waa kana waa ku soo soconaysaa qolashiisii qolal aad u waaweyn waa marka dhanka waxbarashada lagu talagalnay waa kana qaadkiisa saan waay si nafisna uga helaan meeshana maadaama ay tahay meel aad u qabow badan إن شاء الله ممكن وأركز ممكن دايمتيز كيس شمتيز كيسيودي صدر ومدني إن أنا كان مثلا بلاد إيران وكنا فرش شوية وقابه فرشي وحبرشة qaybtaan iyo qaybta kale oo xagga jirtaba oo arkaysa insha Allah inta hadda marka u soo baxno meelaha waa qoroshi waxa naga jiro oo hooyigii ay seexan lahaayeen carruurta waa meelihii carruurta ay seexan lahaayeen waa meelihii la seexan lahaa runta sida aad arkaysid inta waxa ugu talagalnay waxa waaye qaybtan inay ka gasho qaybta wiilasha inay halkan ka galaan dhismahoodii halkan u jira si dhismahooda ugu gutaan ugu jiiftaan qaybihii jiifka ee wiilasha waaye iridaan intaa laga galaa kadibna wixii saan oo dhan dhismaha kala ka sii dambeeyo waa wiilashii meeshii ay seexanayeen waxa kale oo soo haray albaabkana ku soo haray albaabka waxaan ugu talagalnay asna qaybta dumarka iriday ka gal lahaayeen waaye marka waa kaasaa walaalayaal dhismihii qaabkan xaalkiisa maraa waa kaasaa qaybtii labaad waxbarashada wejigiisii kaleeto waaye ardii sheegayay isla wejigaan waa qaybihii waxbarashada oo kaliya marka waa qaybihii waxbarashada waxaan nooga qorshaysan darjiimankii beeraha inay beerihii noo noqdaan insha Allah halkaas wax naga jiro waa masjidkii ay ku dukan lahaayeen salaada marka runtii wax badan waa qabateen ilaahay miisaankiina xasanaadka ilaahay idin saaro runtii waxa aad ka qayb qaadanaysaan waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala oo khayr ilaahay idinkaga waafajinayo waa wax khayr ah waxa intaas aad u sameynaysaan waa ilmo yar aan hooyo lahayn aan aabba lahayn marka insha Allah ka qayb qaata khayrkan Malcasha Foundation in aad garab naga siisaan si dhismahan ee u noqoto
dhismo agoonta wax ku tarto marka insha allah sidaas ayaan sidaas iyo wax qabad wacan. Assalaamu calaykum. waa kana qaybtii labaad oo haweenka waayo marka insha allah runtii waxaa horta mahad xusan allah subxaanahu wa tacaala runtii ihaysiiyey kuna noqotay awooddiisa wax walba oo annaga aan qaban waxaa ku mahadlay allah subxaanahu wa tacaala. runtii waxaan ku jirnaa bil aad u barakaysan weliba waxaan kusii jirnaa 10kii dambe oo ilaahi subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay inaa anzalnaahu fi leylati alqadr wamaa adraaka maa leylatu alqadr leylatu alqadr khayru min 1000 shahr. waad dareemi kartiin waa bil barakaysan bishii barakaysan haddana waxaan dhexda uga sii jirnaa 10kii dambe oo ilaahi subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay in leylatu alqadri yaa inoogu dhex tilmaamay 10kaa maalmood inay ku dhex jirto. runtii walaalaha muslimiinta meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ilaahay ha nagu waafajiyo leylatul qadriga khayrkiisa ilaahay hana waafajiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka barnay ilaahay leylatul qadriga khayrkiisa ilaahay hana waafajiyo. ilaahay ha ku mahadsan inay noqoto xaruntan Maam Caasha Foundation shalay sidii ahaan jirtay